صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين مركا كوباد وفد قيمها له وهجامين يو قدوميها حزبك كل مية أهنا وسيرك وسارد الرميها جودها قدوميها كحجين كحزبك عبد العزيز محمد صمالة قدوميها كحجين كاللباد أحمد عبد الإيره أحمد عبد حسين وفدك شرفت له وسيرك قرشينتا تورنو وفدك بلارن عقاش السلادينتا وضياشا علماء الدينك حقيقياشا دمانتود وحنتكون سلام يا سلامة إسلامك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وأنا ندي سود ويننا وحنت لي نهاي كسود وهذا دقمديني يدلكيني يدقانكي لا يدكتش على waxaan rabaynaa dhowr kalmadood oo taariif oo degmada ku saabsan aan idin sheego degmadani waa degmada ugu ballaaran haday tahay baaxadda dhulka iyo haday tahay population-kaba marka laga hadlayo 7 degmood ee degmooyinka dhiida ee weeye waana gobolka waxa ka baxsan caasimadda Hargeysa degmada ugu population-ka badan waxaa ka diiwaan gashan 22,000 oo codbixiyayaal waxay ka koobantay degmadu 40 tuule oo waliba bar ka mid ah deegaanka uu naga goostay caasimadda bariga dhaweeyda qorsheynta ballaarinta caasimadda aan ku wareejinay laga soo bilaabo Hargeysa duleedkeeda إلى بلي وقارو 135 كيلومتر دheer بلعهانا 7 كيلومتر بالغو قياسا meelaha qaarna 60 meelaha qaarna 50 marka haday tahay baaxadda deegaanka baaxadda dhulka iyo haday tahay population-ka ku nool iyo tuulooyinkeeda waa degmada ugu ballaaran ee caasimadda ka baxsan ee gobolka Maroodi Jeexa marka hadii laga reebo Gabil waxaan inta soo raacinayaa waa deegaan ku caanan nabadda iyo muxaafidnimadaba degmo mucaarad waa degmo xadaariya oo dadka si wanaagsan u soo dhaweysa oo aasaaskii nabadda Soomaaliland iyo taxriirkeediiba bays u ahayd maanta ragga xukunka inoo haya matalada haya waa mujaahidiintii waa raggii maalintii daba bahal ciidankii jabadii SNM lagu qaybinayay dalka la gelayo waa ragii hormuudka ka ahaa wadankana waxa laga galay wadada la yiraahdo xorriyo ee dhubato dhamaantood waa deegaanka dadkani ka soo jeedaan waxaan raacinayaa hadeerto waxaan maqlaayay de suldaankii ugu horeeyay wuxuu degmadii Isxaaq kaliya ma lahe bahagar xajis ma wada leh waa lagu kala badan yihiin waxa weeyaan anagu sabab wanaag waxa dadka meelaha waxaan ka maqalnaa garxajis G36 baanu nahay waranaga G36 oo degmada sabab wanaaga oo ciidagaliya Isxaaq wadaley waxaan raacinayaa barakallahu fiikum inagu waxa weeyaan ahlul karamka waa in la soo dhaweeyo bani aadamku waxaan maqlay aflagaadadu waxa la yiri colaadna wax kaaga ma tartan nabadna way ka kaxaysaa aflagaadu colaadna wax kaaga ma tarto nabadgeliyana way ka fogeysaa waxa weeyaan dadku hadduu qaan gaaro imka dad waa inay ilmaha xilligii lababa marayaba xilligii dadka la wareerin jiray dadku iska wada bisil yahay qof waliba uu garanayaa wixii uu dana iyo halkay ku jirto iyo ciddu wax la qabsanayo samakii caadifadu u dhamaaday waxaan idinku soo dhaweynaynaa degmadu waa degmada caynkaasa waa degmada sidaa u ballaaran waxa ka qabsoomay waxay leedahay 24 school oo elementary intermediate iyo hal secondary laba secondary school ay leedahay 24 school oo intermediate iyo secondary school bale ayaa degmada ka hawlgala waxay leedahay 7 plastic dam waxay leedahay degmadu 7 MCH
amba hersboos ma oo 6 ka mid ah shaqeeyaan waxaan ay dhammaan plastic dhaamyada ugu yaraan 5 plastic dhaam waxa la sameeyay intii talada uu hayay xisbiga kulmiye laba kamidana dadka qurba joog ah ee deegaanka u dhashay baa soo dhisay hadda waxa socda mashruucii ugu ballaadhnaa ee sabawana ee la geliyay sabawanaag ee ku qiimaysnaa 600 ilaa 700 oo kun oo dollar oo big dhaamade dhaamka weyn ee bedar wanaaga ayaa hadda socda weligeed may dhicin sabawanaag 600 oo kun oo la geliyay meel may dhicin laakiin dhaamka weliba gacantiisa waxa ku soo bixiyay madaxweynaha xukuumadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi waxaanu soo siiyay deegaankeena ayaanu ku bixiyay rag odayaasha iyo salaadiintii iyo xildhibaankii Jamaal Aadan Diiriye ragii hawsha ka soo shaqeeyay odayaashii waaweynaa ya Axmed Cabdilaariye iyo salaadiintubana waa ka wada shaqeeyeen arrintaasina wasaasay ku socotaa waxa jira baahimo dhamaatee degmadu maanta nuur iyo naaleeyaba waa dhantiina waxaan ka codsanaynaa ina waxa la wixii uu qaban kartaan suldaanka dhameeyo wuxuu qoraal bal idinku gudbinaynaa ina wax ka qabataan intaasaan ka codsanaynaa wafdigiina sharafta leh waana soo dhawaada baan idin leenahay barakallahu fiikum